Garyaqaan 8 Sebtembar waa berri oo maalin Isniina ah saacadu markay tahay 10:15 subaxnimo waxaa si rasmi ah u bilaabmaya dhageysiga qareenkiisa ama maxkamadiisa rasmiga ah oo aan hordhac ahayn waxa ay ku magacaabeen individual hearing haddii uusan qareenkiisu dib u dhicin kiiska lagu haysto garyaqaan sida bogga rasmiga ah ee ayis markii numberkiisa iyo magaciisa lagu galo ay sheegayaan dembi kale ma ahan garyaqaan waxa lagu haystaa waa socdaal laba qaab waa loo baari karaa marka koowaad magaciisa waddanku ku dhashay iyo numberkiisa adigoo isticmaalaya waxaad arki kartaa halka uu ku xiran yahay magaalada uu ku xiran yahay xabsigiisa waxyaalaha noocaas ah ayaad ogaa kartaa xilliyada booqashooyinka iyo waxa noocaas ah ogaa kartaa waxaa jira bog kale oo marka numberkiisa lagu galo aad ka ogaa kartid taariikhdii garyaqaan la soo xiray kiiska loo haysto sidoo kale way sheegayaan dadka socdaalka ama sharciga dalku galka ah oo kaliya loo haysto ayaa boggaas la soo dhigaa taariikhdii la soo qabtay haddii dhageysi maxkamadeed oo hordhaca uu jiray iyo xilliga rasmiga ah oo dhageysigiisa maxkamadda ee go'aanka looga gaarayo uu jiro intaba halkaas waad ku arki kartaa sidoo kale magaca qareenkiisa boggaas waad ka heli kartaa ninka odaga ahaa weli waa uu ku jiraa beri oo 8 Sebtembar ah ayayna dhageysigiisa rasmiga ah maxkamadda u aastaysay dhammaan dadka Soomaaliyeed waxa u duceeyaan ninkaas odaga ah inuu Ilaahay ka soo fakiyo go'aanka laga gaaran oo noqdo go'aan uu xorriyadiisa ku helo ee uusan noqon go'aan ama xabsiga lagu sii hayo ama meelo kale loo tarxiilo